naclad korkiisa ha noqotee waa kuma munaafiq kitaabka Qur'aan Kariimka Alle gubay kuna istaagay ka oo jooga magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxay noqotay dhacdo dhammaan muslimiinta caalamka oo idil wada kicisa dalal badan oo islaamna madaxdooda ay ka soo hadleen. Salwan Momika waa munaafiqii gubay kitaabka Quraanka kuna istaagay masaajid ku yaala magaalada Stockholm hortiisa ayuu ku gubay kitaabka Quraanka Kariimka iyadoo ciidanka magaalada Stockholm ku nool ay hortaagan yihiin. Waxay ahayd mudaharaad ballaaran wallow dhibaato badan aysan ka dhicin halka laakiin waxay noqotay dhacdo xanuunjiso qof walba oo islaam ah. Dalal badan oo diin islaamka haysana ay ka soo hadleen ayagoo ku sheegay inay tahay xaalad aan loo dulqaadan karin. intaan u gudagelin sheekado dhameystiran fadlan muuqaalka like saar siina share gareey buuxina shuruudaha aan ku saaxiibi karno. Morocco ayaa u yeertay safiirkeeda u fadhiya dalka Sweden kadib markii kitaabka Qur'aanka lagu gubay mudaharaad ka dhacay magaalada Stockholm. wasaaradda arrimaha dibadda ee Morocco ayaa falkan ku tilmaamtay mid gadara ah oo mas'uuliyad dara ah xilli muslimiinta ay u dabaaldegayeen mid ka mid ah maalmaha ugu qiimaha badan taariikhdooda. sidoo kale waxaa cambaareen u soo jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ka oo sheegay in kuwa ogolaaday ay yihiin kuwa ku lug lahaa. telefishinka caanka ee lagu magacaabo SVT ee dalka Sweden ayaa tibaaxay in bandhigaasi uu ku dhamaaday si nabad leh iyagoo sii raacay in ninkani ka dambeeyay banaanbaxa uu ku jajjaxay kitaabka Quraanka Kariimka oo bag ka mid ah kabihiisa uu ku masaxay halka qaarna uu ku laalaabay hilib doonfaar oo ceelina uu watay. arrintaasi oo ay ka hadleen muslimiin badan oo ku nool dunida ayaa waxay noqotay mid dareenkooda ku kaco oo loo qorshihiisu u ahaa inuu iska horkeeno muslimiinta ku nool magaalada Stockholm iyo masiixiyiinta halka jooga. Momika oo ah qaxooti Ciraaqi ah ayaa u ololeynayay in dalka Sweden kitaabka laga joojiyo waxaana falkaasi ka carooday malaayiin muslimiin ah oo dareenkooda ku muujiyay baraha bulshada iyo dalka Turkiga oo falkaasi ku tilmaamay wax aan loo dulqaadan karin. dhammaan mas'uuliyiinta Turkiga ayaa waxay tibaaxeen in arrinkan uu noqon doono mid dhibaato ku noqon kara dalkaasi Sweden. gaashabuurta NATO waxaa sharci u ah dalkii ku soo biiraya in ay codeen u qaadaan dalalka qaybta ka ah haddii ay dhacdo dal ka mid ah in gacantaaga uu ka diido aysan markaa qayb ka noqon karin. dalka Sweden ayaa doonaya inuu galo gaashabuurta NATO balse halis ayay ku tahay falka noocan oo kala oo lagu dhibaateeyay muslimiinta iyo kitaabka Quraanka Kariimka Alle oo ah mid ka saxda ah ee dunida marka lagu maamulo. wali mas'uuliyiinta dawladda Sweden wax jawaab ma aysan ka bixin falcelinna ma aysan ka sameyn arrinkii uu sameeyay ninkan Ciraaqiga ee haysta diinta Masiixiga. ma ahan xaalad fiican dhammaan islaamkoodina waa uu ka dhiidiyay. arrimahani ayaa ku soo laabtay dalalka loo yaqaan Scandinavian-ka ama dalalka barwaaqo sooranka Yurub sida Sweden, Norway, Finland iyo kuwa kale inay sameeyaan shacabka dalkaasi ku nool ha ahaadaan kuwa qaxootiga ee diinta Masiixiga haysta iyo kuwa kale markaa dalka u dhashay inay dhibaateeyaan kitaabka Quraanka Kariimka iyo masaajidada ku yaala dalalkaasi. laakiin waxay noqon doontaa sida Turkiga uu ku waramay in arrinkan aan looga haradoonin oo noqon doono mid markaa la isku xisaabiyo. haddii aad nala soo gaartay halkan muuqaalka like saar siina share gareey buuxina shuruudaha aan ku saaxiibi karno.